لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أنت كدي وسلامتهين سيدا وفرسان سمها أقاسمها حسن علي جيسي قدوميها أبا حقيها جود معلمه iyo suxufiyiinta halkan kasoo qayb galay qareenada sidoo kale garsoorka iyo public relationka maxkamadda gobolka banaadir iyaguna joogaan waa salaamintii sana kadib waxaan maleynaa waxay isweydiinaysaan muxuu ka dhihi doonaa gudoomiyuhu mar haddii uusan jaanibkii suxufiyiinta uusan ka dhaweyn jaanib kala joogo marka waxaan rabaa inaan dhowr erey kusoo koobo ah garsoorka iyo warbaahinta wax badan aa kulmiyo oo ay wada ilaaliyaan waxaa kamid ah waxyaabaha kulmiyo waxaan filayaa 5 su'aal isweydiisaan markii aad khabar warinaysaan 5 su'aal waa inuu ka jawaabo khabarka amba 3 kamid ah su'aalahaas saasoo kale garsoorkana marka la keenayo qof la rabo dambi uu galay waa in 5taas laga jawaabo isku mid ah ka tiin meeshaas 5ta isla garanayna Soomaa yaa waa basic saxaafadda maxaa dhacay xagee ka dhaceen yay ku dhaceen yaa geystay waa in ay ka jawaabaan su'aalaha la keenayo waxa la keenayo garsoorka hortiisa saasoo kale khabarka uu baahinayo iclaamkuna waa inay ka jawaabaan su'aalahaas ay ka jawaabaan waa isku mid aan kana halkaas waxa la yiraahdaa marka labada quwadood yaa waxay u baahan yihiin in ay siyaadada qaanuun eegaan ay u baahan yihiin hal laha al-adala wal i'laam waa laba quwadood oo dal kasta bedelo waaye labadaas quwadood UNESCO sanad ka hor waxay uga hadlaysay Cumaan sidee madax banaanida iyo in ay ka badbaadaan xariga joogtada ah looga hadlaa oo loo dhimaa oo loo yareeyaa ay u qabanaysay kulan noocan oo kale ah ayaa Cumaan sanad ka hor ka dhacay saasoo kale Maghrib Morocco saasoo kale uga dhacay yani dunida oo dhan waxa soo laabto waxa waaye xariga iyo oo qof kasta nicib yahay maxay la qofku waxyaabaha nicib waxa kamid ah xurriyada laga qaado waxa imaanayso marka xurriyadaada markaad ka gudubtana oo xurriyadaadu waxa waaye xurriyadu meel ay ku egtahay xurriya mutlaqa wax la yiraahdo ma jiraan xurriyadu meel ay ku egtahay marka xurriyadaas qofku uu gudbo waxa imaanayso in laga dhacsho meesha kale la yiraahdo meeshan waa meel kale waaye beer kale aad gashay ka noqon la yiraahdo imaanayso waxaan u baahanaa markaan dib u soo laabto si isula jaan qaadaan labada awoodood awoodda garsoorka iyo awoodda iclaamka si isula jaan qaadaan waxaan u baahanahay inaan fiirino fishanka suxufiyiintaynu horta muxuu yahay maxay rabaan ma waxay rabaan suxufiyiintaynu dal dhisan oo hagaagsan oo qurux badan ay ku daashoodaan may rabaan mase waxay rabaan dal burbursan oo sidaan sii ahaado oo maalin walba dhibaato iyo dhacdo xun iyo wax fool xun la baahiyo miyay rabaan waxay rabaan maxay yihiin haddii rabaan natiijada hore waxay soo saari karaan sidaas wadadaas ay ku soo saari karaan marka waddo ma noqon doonto cidna dhibayso waddo shacab dhibayso ma noqonayso waddo dawlad dhibayso ma noqonayso waddo iyaga dhibaysana ma noqonayso waxay noqonaysaa waddo lagu raadinayo horumar baraare oo dalka wanaagiisa looga hadlaayo taa mid waaye arrinta labaad waxa waaye iclaamkeena wuxuu kamid yahay masaadirta aan anaga cuskano marka laga hadlaayo garsoorka ilaah aan cuskano kamid yahay maxay la og yihiin qareenadu marka xog la helaayo marka wardambi la helaayo wardambi wuxuu ka bilowdaa waxa kamid ah in qof sheego in sarkaal sheego ama mid caafimaad ha noqdo ama sarkaal kale ha noqdo ama waxa la dhaho open resource in lagu helo oo joornaalka lagu soo qoro saakati joornaalka lagu soo qoro qof meedaha laga helay xeebta liido joornaalka dib lagu soo qoro booliisku maxay sameynayaan isla markiiba khabarkaas halkaas ay ka raacayaan marka waa il kamida ilaah laga helo khabarka laga helo waaye yani iclaam sidaas wuxuu u saanadayaa u taageerayaa garsoorka iyo runta in la gaaro sidaas u saanidaya u taageerayaa suxufiyiinta marka muhiimaday ugu fadhiyaan dal walba suxufiyiintiisu markay ka shaqeynayaan optionkan ka hadlayno ah in dalkan uu socdo dhismo oo sharciyadana la ilaaliyo isku haynta marka labada awoodood ee iclaamka iyo qadaha garsoorka iyo warbaahinta in la isku haayo kaliya waxa isku hay karo in labadaba ujeedkoodu yahay sareynta qaanuunka labada ujeedkoodu inuu yahay sareynta qaanuunka gar ma aha in la qamciyo
in suxufiga la qamciyo gar ma aha, in la jujuubo gar ma aha, laakiin inuu asna sharciga ka cararo gar ma aha, inuu ku dhaco maalin walba wax sharciga kasoo horjeedo gar ma aha, inuu dhaawaco dareenka dadweynaha gar ma aha. waxaan idin siinaa wax kamid a waxyaabaha aysan ku baraarugsanayn suxufiyiinteenu. waxaa kamid a khabar aad jeedisay haddii uu saameynayo bulsho dhan, hal qof dembi kama gelin, waxaa dembi ka gashay ummad dhan. waa garanaysaan maxkamadaha waxaa kamid a dacwadaha lagu qaado dacwado xiran oo loo ogolaan dadweynaha, oo qof loo ilaalinaayo wixiisa gaarka ah, wixiisa gaarka ah qof loo ilaalinaayo. mathalan marka laga hadlaayo keisaska kufsiga waa aragteen, maxkamadda waa la xiraa, dadka waa laga saaraa, si gaar aha loo sameeyaa waraysiga, maxaa yeelay qofaa wixiisa la ilaalinaa, khabarkiisa gaarka ah la ilaalinaa. saas oo kale adigana waa inaad u og tahay in dalkaaga uu leeyahay wax u qarsoon. waa idala kaftama markaan idaacadaha dhegeysanaya waxyaabahan ka maqla waxaa kamid a waxay leeyihiin dal hebla iyo dalka Soomaaliya. muu hadlaayo suxufiga inuu asiga Soomaali yahay, muu hadlaayo waaba dhexdhexaad, macnaha Soomaaliya iyo yani ma dhahayo dalkayna iyo dal hebel ma dhahayo. wuxuu leeyahay dalka Soomaaliya kaanahu inuu qaarad kale ku nool yahay, dalka Soomaaliya iyo dal kale. waxaan isweydiiyaa marka suxufiyiintu tolow armi inay isu maleynba iyagu inay Soomaalida kamid yihiin, armi inay isu maleyn. balaayada gurigaaga ka dhacdo saa u baahitaynana macnaha adigu Soomaaliya tahay, marka gurigaaga saaka waxa ka dhaco wax kasta ma sheegtid saan filaayo. soo saas ma suxufi kasta guriga soo kaca saaka haddaad xaajada isqabataan ma sheegtid, waxaas hataa qof kula ma sheegaysatid, waa ilaalisaa. dalkaaga wuxuu leeyahay wax la doonaayo inaad cidna kula sheekaysan, wuxuu leeyahay wax asturan, wuxuu leeyahay wax la dhaho sir qaran. sir qaran waxaa ximbaaro qof kastoo muwaadin ah ximbaaro. lahaansho waa inay naga muuqato cid kastoo nahaba. lahaansho dalkan annagaa iskale, mustaqbalkiisa annagaa le, annagaa guranayno, annagaa rabno inaan ku maxaan dhahaa ku manaafacasan, annagaa u baahan. waa inaan ilaashanaa marka inaan ilaashanaa waa waxyaabaha u qarsoon. waxaa maanta idila joogi doono garsooreyaal ka tirsan maxkamadda, saas oo kale waxaa idila joogo public relationka idila joogo, waxaa idila joogi doona saas oo kale qareenadii. waxaan filaa halkaa marka waxaa kasoo bixi doonto dood fiican oo aad la isu dhaafsado, walow ay weliba fiican tahay markaa soo saartaanna inaad nala wadaagtaan. waxa ugu dambeyn aad soo saartaan nala wadaagtaan. hase yeeshee balantayada waxaa weeye inaan si mida ugu shaqeyno dalka, inaan isku ujeedana aan ahaano, oon ka ahaano ilaa ma kala duwanine, laba dad ma nihiin, waxaan hal dad aan nahay, inaan isku jeeda ka ahaano dalkan, inaan badbaadino annaga oo ku badbaadinayno oo kaliya in lagu badbaadi karo sareynta sharciga lagu badbaadi karo. aad waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. shirkan waa noo furan yahay.